maamulka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo kaashanaya shirkadda xoogga korontada ee Hillaac ayaa bilaabay dib u qaabeynta nalalka ku shaqeeya cadceedda ee ku xiran wadooyinka waaweyn sida kuwa ka suran hareeraha jidka laamiga ah. Shaqadan oo dhawaan bilaabatay ayaa isugu jirtay in baalayaasha qaar laga raro halkii hore looga taagay si xal loogu helo ciriiriga ay ku hayaan isku socodka gaadiidka iyo in dayactir ay helaan baalayaashaasi oo qaarkood u damay cilado soo wajahay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Maamulaha shirkadda korontada ee Hillaac Cabdirasaaq Sheekh Axmed oo hawshan maamulka u xil saaray isla markaana si isxilqaan u dabaraya kharashaadka ku baxaya dayactirka nalalkan oo qayb ka ah isku aadka cabirka soolarada bilicda caasimadda qaybta ka ah ayaa sheegay in dadaalkoodu qayb ka noqonayo mas'uuliyadda ay bulshada u hayeen muddada 5 sano ahayd ee ilaalinta nalalkan ku xiran wadooyinka magaalada ayna xoogga saarayaan sidii looga badbaadin lahaa bulshada in xargaha korontada dab ka yimaado oo gaar baalayaasha uu sababo khatar xoog leh. hadda markii magaaladii caasimad noqotay jidadkii waaweynaadeen oo guryaha wixii ku hor dhisnaa laga fujiyay waxa soo baxday inaysan baalayaashii sinnayn laynkii korontadu inuu xaggana ka mari waayo mid hore ka maro mid gadaal ka maro mid isagii muxuu ahaa ku aado markii saas aan aragnay in ay khatar tahay korontada iyo baalayaasha soolarada meesha ku mudan yihiin qaarkood in khatar ka timaado ayagoo ay isqirabaan bulshada ay qaribaan waxaan go'aankeeda qaadanay oo balam garaynay in aan baalayaasha muxuu ahaa si siman aan u xirno oo kuwa meelaha aan habboonayn ku yaalla aan tafujinno oo siibno oo god kale u qodno oo dib u qaadno oo wixii dayactir loo samayn kara loo sameeyo la toosiyo meel ku habboon la geeyo. arrintaas kaligana ma aanan qaadin degmadan la wadaagnay degmada ruuxeedu dhaqsan nooma jawaabin mudday qaateen waxay nagu soo dareen mas'uuliyiintii u qaabishaneed howlahaas jidadka iyo waa nala qaateen markii nala qaateen waa noo fasaxeen marka hawshaas saas waaye aan wadnaahu waa wax lagu hagaajinayo waxa lagu bilaqaysanayo ama lagu qaribaayo ma ahan waxaan rabnaa bulshada inaan maanta aan u sheego soolarka Dhuusamareeb lagu xiray wuxuu ahaa 132 xabo 131 xabo ilaa hadda way taagan yihiin hal xabo oo markii laga reebo baawur jajabiyay xilligii madaxweyne xaaf markii laga reebo oo kuwa yar madaxtooyada dhex yaalaha intaas halkoodan ku waardiyeynayna ugana warqabnay haddana qaar badan dansan bulshadu waa og yihiin maamulkana waa og yahay waxaa kalifay 5 sano ka bacdi batariyadii dhoon noqday oo dhacay waana ka bateen wax muxuu ahaa aan anagu kaligana dayactir karna way ka bateen marka laaw jaclada ugu badan qofkii intaas soo hayay ayaa muxuu ahaa soolarada ku hayaan dadaalka dib u hagaajinta nalalka ku shaqeeya cadceedda ee dadweynaha oo wajigan muhiimadda gaarka ah la siinaya sidii loo kala ilaalin lahaa xargaha korontada iyo nalalka ku jira wadooyinka ayaa waxaa daba jooga mashruuc bilaaw ah oo lagu dhameystirayo dayactirkan kuwaasi oo maamulka hore u sheegay in agabkii loo baahnaa la dalbay oo dhawaan Muqdisho la keenay. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.